إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء weli waxaan wada jirnaa muxaadarooyinkii aan uga hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan uga hadlaynay axkaamul muftiriin dadka afuraya axkaamta ku saabsan gaar ahaan waxaan ku jirnaa qaybtii aan uga hadlaynay in lagu afura asbaab banaynaysa afurka waxaynu ku jirnaa masaa'ishii aan uga hadlaynay qofka xanuunsan soonkiisa sida uu yahay waxaan sarabaa intaanan u gudagelin muxaadaradan hadda محاضرة مدي كهريسي مسألة أن كسو شاقي إن دب أقول لابتو مسألة سوحي هذي قفك هدي سفر أو كجرة سفر كان أويا سفر معسية أما السعودال كو كجرة أويا السعودال معسية أم حمات أو سمانية وحا راجح بانري إنو أفر وأبنان تاي تاسي معني هذا معهن إن حمات تدا لجديي أي علماء مركي كهلا يونيليهن إنو أفر وأبنان تاي قفك محنكوير هذا مسافر كأه hadduu xitaa safarkaasi ay safar xumaata ah waxay ka fiirinayaan xukunka musaafir ahaan ama laakiin macaasida iyo xumaatada qofka uu sameeyo waa loo haysaa saadarta marka waxaan leeyahay ku dardaarmayaa qofka musaafirka haddii safarka uu ku jiro safar macsi uu yahay cibaadadiisa khatar bay ku jirtaa inuu iska ilaaliyo baa la doonayaa waxaan gudbaa marka masaa'ishii ku saabsan qofka xanuunsan haddii qofkiis xanuunsanaa soonka oo soomay sababkiisa oo uga baqay dhibaato inuu soo gaartay muxuu sameeyaa sida saxiixa ka xanaabada agtooda waxa weeyaan qofka noocaas inuu soomo waa loo kahdaa oo waxay leeyihiin hadiiba naftiisa in dhibaato soo gaarto oo ka baqayay ama halaag inuu ku dhaca ay suuragal tahay inuu soomo waa loo kahdaa xaraana kama ahan sababtoo ah waxay leeyihiin asal waxa ay soonku inuu ku waajibo xanuunkan wuxuu u baneeyay inuu afuro جماعة حنابلة كمدنا وحي يراهدين إنو الصوم واكا حاران قفكو مركي صونكو دبات اوكينا هيو إلهي سبحانه وتعالى وحير ولا تلقوا بيديكم إلى التهلوكة نفتينا هلاك قرتها اوغلنين او هسبابيننا أي ربي سبحانه وتعالى مالكي وحي يراهدين أيغا وحا حاران قفك إنو الصوم حنون هدوهايا وهدي حنون كاسي عافمات كيسي او يعني مركتي دبات اوغيسانيا أما بالله يابا إنو أولين تحيطها مسألة مركو حراجح إنو دنبابيا حاران أي كتها إنو صومه وأنا السيدة أرجحي شيخ عثيمين رحمه الله تعالى هذا يدعى مركو قفكي حنون سنة إنو عافي ماذا أما بقى أي دعوه قفكي سفر كجري سفر إنو كي ماذا معنى رمضان لحظة داي صون كي سمحون غاية وحاول المسألة داني قفك أنو حنون سنة وعافي ماذا أما مسافر بو أها سفر بو كي مذي محي علماء أنت سيكر دهين qofkaasi inuu maalinta inta dhiman afhaystay ma waajibay ku tahay mise waajibkuma culumada isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen hadii qofka oo xanuunsana oo caafimaad maalinta gudaheeda ama safar uu ka yimid maalinta dhexdeeda waxa waajib ku noqon maalinteeda kale inuu afhaysto qolana waxay yiraahdeen waajib ku noqon maayo maalinta inteeda dhiman inuu afhaysto markii aad fiirisan waxa weeyaan qolka la raajix noqonayo inuu afhaysta waajib kuma ahan haduu qofku musaafir ahaa maalin ramadaan gudaheeda uu soo laabtay ama uu xanuunsanaa maalintii bartamaada uu raystay oo caafimaad helay waxay haysteen awal sabab oo u banaynaysa inay afuraan mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan haday dhacdo qofka inuu aad u baahdo ama aad u haraado oo ka baqa inuu dhintay inuu soonka iska daaymo banaatay masma u banaano culimadu waxay leeyihiin hadii qofka gaajo daran ay qabato ama si daran u haraado oo ka baqa inuu halaagsamo dhinta waxa loo jideeyay xaaladda nooca markay tahay inuu iska afuro xitaa haba ahaado qof caafimaad qaba oo aan safar ku jirin maxay rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wala tulqu biidikum ila tahluka soo kale alla wuxuu yiri wala taqtulu anfusakum inuu iska furo oo banaantahay inuu qadayna waa laga rabaa lianna wuxuu la mid yahay bayradan qof xanuunsan oo kala waana sida ay qabaan a'immatul arba'a afarta imaam haday dhacdo qofka marka gaajo dar inay qabato oo isleeyahay ama halaagsantaa ama oon daran uu qabtay waxa uu banaa inuu afuro kadibna iska qalleeyo haday dhacdo qofkii inuu ka caajiso inuu soomo duqnimo daraadeed ama uu xanuunsan yahay xanuunkiisa inuu ka caafimaad rajayn maayo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd
qof xanuunsan has ahaatee inuu xanuunkaas ka caafimaad rajeynaya kan waxa weeyaan qofkaani waa xanuunsan yahay inuu xanuunkaas ka kacana mal rajeynayo dhaqaatiirta aqoonta u leh cudurrada ay waxay yiraahdeen xanuunkan kii laga caafimaadey ma ahan ama waa qofkii duqo ma awoodo inuu soomo qofka noocaasi soonkiisu muxuu noqon hayaa culimadu waxay isku khilaafeen waxa laga rabo qofka noocaas isaga qolo waxay yiraahdeen qofka noocaasi waxa laga rabaa fidyi inuu iska bixiyo ama raashin inuu bixiyo oo miskiin uu quudiyo maalin kasta hal qof oo miskiin ayaad quudinaysaa wixii maalinta ku filnaaba siinaysaa waana si ay qabaan jumhuurul culama oo ay ku jiraan xanafiyada iyo sida saxiixa ka ah shaafiicida agtooda iyo qowl xanaabilada u sugnaaday waxayna dilisanayaan qowlkii Allah subhanahu wa ta'ala ee ahaa wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskiin aayadaasi laba qira'a ku jirto qiraa'ada waxa weeyaan wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskiin kuwi awoodi soonka fidyi baa dushooda ahaaday oo ah in miskiin ay quudiyaan Salamat ibn al-Awwa ayaa wuxuu yiri aayada markay soo degtay oo ah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskiin qofkii raba inuu afuro afuriyay fidya iska bixinayay ila ay ka soo degtay aayada ka dambayso oo nasakhdey tii hore buu yiri hadiiskan waxa soo saaray Bukhari Muslim qiraa'ada kale aayada ku jirto waxaan wa 'ala alladhina yudawwaqunahu fidyatun ta'amu miskiin dib bay ku qabaan laakiin waxa weeyaan haddii ay isdhibaan way kari karaan hasaate waa ku dhibtoon hayaan ibn Abbas radhiyallahu anhu ma wuxuu yiri saan daba ayuuna akhriyay aayadan mansuukha ma ah wuri oo waxay ka hadlaysaa waxa weeyaan odayga waayeelka iyo haweeneyda duqda ah oo inay soomaan awoodin maalin kastaaba inta ay soomi lahayeen miskiin bay quudinayaan macnaha yudawiquunahu waxa laga wadaa yukallafuunahu fala yastadiicuuna yani lagu kallafayo oo aan awoodin macnaha arinta markaad fiiriso waxa soo baxaya qofka waayeelka ah ee aan karin inuu soomo maalin kasta miskiin ayuu quudinayaa miskiinka uu quudina dabcan qayb kamid horaan ugu soo hadalnay waxa weeyaan maalinta wixii ku filan siiso ama ha kula afuro oo ha kula suxurto ama afur kaliya hadaa siiso sida culimada qaar ay qabaan qofka xanuunka inuu ka raysay aan rajeynin iyo qofka duq oo aan karin inuu soomaayo waxa la leeyahay ayaga fidya iska bixinayaan saas ayuu leeyahay Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qowl labada mas'ala ku jirna wuxuu leeyahay wax ku waajibi ma leh qofka haduu soomi kari waayo marba hadii ay soonku u suuragali wayso qofkaani waxaasa ku waajibi la dhihi maayo qowlkan dabana waxa qaba salafka qaar kamid ah iyo maalikiyada iyo shaafiicida qowl u sugnaaday mas'aladan waxa raajaxay jumhur culama ay qabaan oo ah qofka hadii uu awoodi waayo inuu soomo waa qof xanuunsan xanuunka inuu ka kacan aan rajeyninin ama waa qof waayeel ah ee inuu soomo aan kari karin qofka asaga miskiin buu quudinaya oo waxa weeyaan fidya ay iska bixinayaan maalinkaas intii laga rabay mas'alada marka mas'ala raacdo oo ah hadii la yiraahdo fidya bixinayaan fidyada ay bixinayaan ma waxa waajib ku ah inay quudiyaan maalmaha tiradooda yani maalmaha soonka 30 maalmood ama 29 maalmood masaakiin la eg inay quudiyaan oo 30 miskiin inay quudiyaan ma waajib ku ah arintaas culimadu isku khilaafeen qolo waxay yiraahdeen maalmaha tiradooda masaakiin la eg ay quudinayaan sida darteed ma gudmeeyo oo ma ansaxay bay yiraahdeen hal miskiin haday quudiyaan oo hal miskiin ay siiyaan 2 maalmood ama ka badan fidya ay siiyaan qolkaas ayaan xaniifiyadu buu u sugnaaday qowl labaadna wuxuu leeyahay shardi ma ahan masaakiinta la quudinaya in ay tiro badnaadaan oo waxa banaan hal miskiin in 20 maalmood ama 29 maalmood ama 30 maalmood hadba qofka inta uu furayo in yaani maragtay uu siiya u banaan fidyadii qowlkan daba wuxuu leeyahay la dhihi maayo inta maalmood oo soonka yahay oo yaani fidyo la bixinaya masaakiinta waa in isla ekaadaan yaani maalmihii iyo waa in isla ekaadaan masaakiinta la dhihi maayo qowlkan labaad ayaana ah midka raajixa oo shardi ma ahan in maalmaha inta ay leeyihiin in masaakiinta isla ekaadaan mas'alada arinta raacsan waxa weeyaan hadii qofkii fidyo uu bixiyo kadib inuu soomo oo awoodo qofkaani markii hore uu xanuunsaday waxa la yiri xanuunkii la kacay ma ahan saadarta marka fidyo markuu bixiyay kadib uu caafimaadayba arinta noocaas culimadu isku khilaafeen waxa la is weydiiyay
fidyadii hore miyay u ansaxaysaa ama inuu qadaya waajib ku ah culimada qaar kamid waxay yiraahdeen haddii qofka uu awoodo yacni maragtay fidyo markuu bixiyo kadib inuu soomo u awoodaayo fidyadii way buraysaa soonka inuu qadayana waajib ku ah waana madhab al-Hanafiya iyo wajh Shaafici u sugnaaday sida uu qabo waxay yiraahdeen fidyada waxa shardi ah in ay bedel ka ahaatay soon welibana dhibaatada keentay fidyi in la bixiyana waa inay joogto ahaataa ilaa qofku ka dhinto haddii fidyadii u bixiyay kadib uu fiicnaado caafimaaday ama kadib haduu waaye la xitaa oo awoodo inuu soomaayo qofkaas waxa la leeyahay fidyadii waa yacni maragtay waa burtay soonka qadihiisii ayaa laga rabaa oo waxay lama tahay bay yiraahdeen haweeney iyo cid tirsanaysi bilo oo markii hore aheeday mid aan dhiig u imaanin haween markii hore ku cid tirsanaysay bilo oo aheeday haweenka aan dhiig u imaanaynin kadib waxa dhacday haweeney inuu dhiig kiimid intiisan muddada dhamaanin haweenaas idin waxa la leeyahay waxa waajib ku ah ciidada dib inuu soo bilowdo oo saddex xeyd ay tirsato oo bilihii hore iyo ciidadii hore tirsanaysay xisaabta kuma jirto bay yiraahdeen tana waa la mid bay yiraahdeen saadayta marka waxa laga rabaa qofkii haduuba soon awoodo inuu soomo ayaa waajib ku ah asaan asal habalini qolo mas'ala ku jira wuxuu leeyahay waajib kuma aha yaani maragtay soonka inuu qadeeyo maalmihii uu afuray oo bixiyay fidyo sababta qofka asaga ah ruqsoo haystay ruqsadii ayuu ku amal falay waana sida saxiixa ka Shaafiiciga agtooda qolkan labaad ayaana ah qolka raajix oo waxa la leeyahay qofka hadii uu awoodi waayo markii hore inuu soomo duqnimo daraadeed ama xanuun hay oo la yiri ma ka reysanaysa dartiis oo fidyo bixiyay waxa la leeyahay fidyadii aad bixisay waa ku ansaxaya kadib haduu soonka kara xataa waxba macnaha laga maraba inuu soomo u qadeeyo mas'ala arinta raacsan waxa weeyaan hadii ay dhacdo qofka inuu bixin waayo fidyadii qofka uu soomi waayo waa xanuunsana xanuunkiisa inuu ka caafimaad rajaynayo ama ahayn waa yeel weeyaan oo inuu soomo ay suuragal ahayn fidyadina waa iska bixin waayo fidyada ma ka dhacaysaa mise ma ka dhacayso arintaas culimadu isu khilaafeen qolo waxay yiraahdeen fidyada way ka dhacaysaa sababtoo ah maadaama uu kari waayay xilligii in fidyo u bixi laga rabay way ka dhacaysaa bay yiraahdeen waana wajh Shaafici agtooda ahaaday iyo Xanaabila ay qabaan qolo labaad waxay yiraahdeen fidyada marnaba dhici mayso hadii hadda uu awoodi waayo maalintii uu suuro gasho oo awoodi karaay ayuu fidyada bixinay bay yiraahdeen qolka labaad ay culimada qaar rajaxino oo waxa la leeyahay hadii uu awoodo qofkii fidyo inuu iska bixi baa la rabaa sababtoo ah waxa laga rabaa qofka inuu soomo haduu soonkii awoodi waayo inuu bedelkiis inuu bixiyo bedelka haduu awoodi waayo maalintii uu suuro gasho inuu awoodana inuu iska bixi baa la doonayaa mas'ala ku arinta raacsan waxa weeyaan fidyada goorma ayaa la bixinaya fidyada aan niri ama raashinka uu bixinaya qofkii awoodi waayay inuu soomo duqnimo daraadeed ama xanuun haya dartiis fidyada goorma uu bixinaya Xanaafiyadu waxay leeyihiin qofka ikhtiyaar wuxuu leeyahay fidyo inuu bixiyo bisha Ramadaan bilowgeeda ama dhamaadkeeda aakhirka bisha ama awalka bisha inuu iska bixiyo hal maalin waa u banaan tahay marba hadii qofkaani uu ku tala galay ama la og yahay inuu san soomi karin Shaafici waxay yiraahdeen fidyada in la dedejiyo ma banaano waxaana banaan in la bixiyo yiraahdeen maalin kasta qorax markay soo baxdo ama waaga intuu bariin ka hor hadii uu qofkii fidyada bixiyay laba ihtimaal baa ku sugan bay Shaafici yiraahdeen Imaam Nawawi raxmatullaahi alayhi ayaa wuxuu yiri wasawabu jawaasuhu aydan in banaanta ayana sawaab ah buuli oo waxa banaan qofka in fidyada uu bixiya marba hadii bisha Ramadaan ay dhalato mas'ala kale arinta raacsan waxa weeyaan oo ah mas'ala aad muhiim u ah haweeneyda uurka leh iyo midda canuga nuujinayso haday afuraan oo ina u baqaan naftooda ama caruurtooda haweeneydan u bay leedahay nafteeda u baqday ama ilmaha uur ku jira u baqday ama haweeneydan canug bay nuujinaysaa nafteeda ama canuga ay nuujinaysaa u baqday soonkooda muxuu noqonayaa mas'ala muhiim ah walaalayaal ila lix qowl ay culimada arintaasi ka qabaan horta hadii haweeney uur kale nafteeda u cabsato oo xanuun u cabsato ama dacf u cabsato ama canugeeda u cabsato in gaajada saameyn ay ku yeelato ama haweeneydii canuga nuujinaysa nafteedii ay u cabsato hadii ay soonto ama canugeeda ay u cabsato maxaan ku yiraahdaa hadii ay soonto inuu yaani maragtay caanihi iyo nuqsaan ay soo gaaraan waxa u banaan in ay iska afuraan arinta culimadu isku khilaafsan laakiin waxa la isku khilaafsan yahay oo mas'ala muhiim ah
in haweenka la socon la doonayo wax weeyaan maxaa haweeneyda canugu nuujinaysay ama midii uurka laheeday haddii ay afuraan maxaa laga rabaa ilaa 6 qowl ayaa ku jirta in mas'aladaasi qowlkoodu wuxuu leeyahay haweenka noocaasi ah inay quudiyaan ay waajib ku ah maalin kastaba miskiin bay quudinayaan wax qadaan laga ma rabo qowl labaad mas'ala ku jira wuxuu leeyahay haweeneyda haddii uur leedahay way afuraysaa wayna qadaynaysaa mana quudinayso haweeneyda haddii uur leedahay way afuraysaa waana qadaynaysaa miskiin quudaysan laga ma rabo ama haweeneyda haddii canug nuujinaysaa way afuraysaa waa qadaynaysaa quudna way bixinaysaa oo fiday bixini qolka wuxuu kala saaray marka haweeneydii uur kala heeday imidi aan uur kala heen hadday uur leedahay waxa u baahan inay afurto oo na qadayso in quud bixisana ama fidi bixis laga ma rabo haddii canug nuujinaysana way afuraysaa way qadaynaysaa fidayna bixinaysaa qowl saddexaad oo mas'ala ku jira wuxuu leeyahay haddii haweeneyda uur kale ama midda canug nuujinaysa ay naftooda u cabsadaan midii uur kala heeday ama midii canug nuujinaysay naftooda bay u cabsadeen way iska afurayaan qado bas laga raba wax kale laga ma rabo haddii laakiin caruurtu ay u cabsadaan way afurayaan inay qadeeyaan iyo inay fidi bixiyaan ayaa laga rabaa qolkaas saddexaad wuxuu leeyahay anigu waxaan fiirinaynaa haweenkan uur kale ama ilmaha nuujinayay maxay u cabsadeen haddii ay naftooda u cabsadeen way afurayaan qado bas laga rabaa haddii caruurtu u cabsadeena way afurayaan qadana waa laga rabaa fidina bixiyana waa laga rabaa waana si saxiix ka Shaafici agtooda qowl afra mas'ala ku jiran wuxuu leeyahay haweenkaasi waxa ku waajib inay qadaan oo kaliya ama ilmahooda u cabsadeen ama naftooda u cabsadeen inay qadaan bas baa waajib ku ah qowlka shanaad mas'ala ku jira wuxuu leeyahay haweenka noocaas inay qadaan baa waajib ku ah iyo inay quudiyaan kulli xaalba wuxuu leeyahay ama naftooda u cabsadeen ama caruurtooda u cabsadeen marba hadii ay in afuraan u banaaneed haweenka ilmaha nuujinayay ama midii uurka la heeday waxa la leeyahay in qadayaan waa waajib in quudaan waa waajib qolku uu dambeeyo lix mas'ala ku jira wuxuu leeyahay wax laga rabo ma jirtaba qadana laga marabo quudna laga marabo haweenkan markii soonka laga rabo awoodi weyn Soomahan saadarteed wax laga rabo ma jirtaba la leeyahay waa qolku uu dambeeyo qolku uu raajixsan waxa weeyaan qolka dhahaya qada ayaa ku waajibiya fidnina waa laga rabaa maxaa yeelay qowlka asaga ayaa dililkiis aad u xoog badan yahay gabagabada marka waxaan leeyahay haweenka uur kale ama ilmaha nuujinayo hadii ay naftooda u cabsadaan iyo hadii caruurtooda u cabsadaan labadaba inay qadeeyaan waa waajib fidi inay bixiyaan waa laga doonayaa saasana baabul ihtiyaad baabka loo yaqaano iyo si ay khilaafka ugu baxaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam